السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام دمانتين أصحابتي إذا سو دواada inta ila socotay inta igu soo biirtay inta igu soo biiri doonto soo dhawaada maanta waa aniga isaceegi baadiyahayga iyo banaankayga insha Allah in yaroo tusaale ah fiidiyowga waa ka saacaanihii lo'da oo la soo lulay meesha lagu soo shubay caani iyo subag la soo kala bixiyay qaybtaas waa qaybta subaga ah oo burcadka ah qaybta sixinta ahayd gooniya looga bixiyay marka tusaale soo qaatay waa caanihii lo'da oo markii la soo lulo ugu soo kala baxa dhowr qaybood qaybta subaga ahayd sixinta qaybtaas oo burcadka gooni u bixiyay caanihii fadhiyay biyihii oo laga reebay 4 qayb ahaan soo kala baxay waa kaas biyo jar iyo toona ku soo daray nuskiradaas burka ahaan soo sameeyay rootiga aan soo dhexgeliyay ku soo dubay marka intaas waa u dhiirigelin waa tusaale wixii yar marka haysato sidaas loo sameystaa qofka xoolaha haysto qofka baadiyaha jooga wuxuu sameysan karo ugu fudud qofka magaalada jooga sidoo kale wuxuu sameysan karo marka tusaale waaye oo dadka anfacayo oo qof walba rabto inay isku daydo oo jecel marka insha Allah isku day ka wardoono waa ka asagoo qurux badan insha Allah anigana waxaan ka jeclaanahay anoo wadankayga joogo ku sameysanayo haddii aan markaas xoolo leeyahay haddii aanan lahayn intaba waan sameyn karaa wixii aan isku dayo markaas marka la isku dayo dadka xoolaha haysta isku dayaan inay xoolooda wax walba ka soo saaran karaan caanahooda ee wax walba u adeegsan karaan ayagay ka dhigan karaan qayb ay caana ahaanta wax ugu cunaan saliid ka baxsadaan farmaajadii ama uustigii jiiskii qofba siduu u yaqaano burcadkii annaga Soomaali lafteena saasaan dhahnaa jeclahay intaba uu ka sameysan karo marka la isku day wixii in la sameysan karo wax walba wax banaanka jiro indhaha lagu taagin wixii banaanka laga keenayaa la raadin wixii gudaha yaala in wax laga sameeyo la isku dayo wadanka dhexdiisa markaas anagana horumar gaari lahayn laakiin dad waxaan nahay dibadda ku maqan oo wixii dibadda laga keeno rabo oo ayaga dibadda u sii socdo oo maxay hadii hilib digaag dibadda laga keeno ay arkaankii dalkooda yil aan rabin hadda bari hore waxa la sheegay madax ariyo wadanka la geeyay marka kaas oo kale hadii la arkan dadkiina wadanka jooga waa gadanaysiin waxa leeyahay madaxan ariga dibadda ka yimid hala gato meesha asagoo qalalay oo muddiina anaga isticmaalna qofka rabo inuu gato marka idinkoo wixii fresh helaayo wixiina sameeysta wixiina ibaansada idinkii is horumaray noqonay markaas hadii wixii qofka markaa haysta laga iibsado dib ay isu sii gelisiin laakiin hadii wax la idin soo dhoofiyo aad gadatiin mar walba wadankii horumar ma yeelanayo marka insha Allah hal is caawiyo hal is kaalmeesto kii qudaar haysto qudaartiisa haduu soo saarto ha laga adeegto hadda waxaan arkaa qofka shirmaadeer haysto supermarketyada alaabooda dibadda laga keenay inay ka u suuq tagaan dadka oo hoos banaanada la fadhiyo ha laga iibsado ayaga u baahan hal dhiirigeliyo dadka hal isgarab qabto saasa wanaagsan wixii markaa dibadda kaaga yimid wixii aan markaa wadanka oolin ama aan laga maarmin hal iibsado laakiin wixii markaa adiga ku yaalo oo dadkaagi iyo dalkaaga ay laga helaayo waxaas in hal iska iibsado ana la isku caawiyo si aan horumar u gaarno waxa dib noo dhig waa waxaas anaga dhanba waxaan dad aan wax soo saarkooda iyo dalkooda ku qanacsaneen marka insha Allah ku dad dalkooda ku qanacay Ilaahay naga dhigo oo isgarab qabto dalkoodana horumarsado insha Allah dhamaantiin soo dhawaada fiidiyoyaal karo dhiirigelin waa noo soo wadaa follow soo dhaha TikTok YouTube sidoo kale subscribe soo dhaha soo dhawaada dhamaantiin